Huseenow war baan ku hayaa waxaad tiraa weeye walaalow wacdiga layna faray ila wanaag weeye weysada salaadeed inaanan wanahaarka soon inaanan soor waana cunin weeye waxsano aan dooniya inaan wax xun nacaa weeye walbahaarka aakhiro inaan wax u tabcaa weeye بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مقعي waxaa la yiraahdaa Firdawso Jaamac Yuusuf waxaan kamid ahay aasaasiyaasha xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska ee Jaamac Umar Ciise بسم الله الرحمن الرحيم مقعي waa Maxamed Cabdi Cabdi Qaadir magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Ukaash magacayga waa Nashaad Cabdi Wali magacayga waxaa la yiraahdaa Safiya Maxamuud Maxamed kamid dhalinyarada ku xiran maxadka dhaqanka iyo horumarinta fanka ee Jaamac Umar Ciise xarunta Jaamac Umar Ciise ee magaalada Nairobi waxyaalaha ay qabato waxa kamid ah inay dhiirigeliso dhaqanka iyo dhalinyarada hal abuurka ah iyo cid kasta oo u dhaqdhaqaaqda dhaqanka iyo fanka Soomaalida iyo fan qoraalka xarunta Jaamac Umar Ciise iyo anigu hayaankaygu wuxuu ka soo wada bilowday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo xaruntu ay ku qabatay bandhig weyn oo dhaqanka Soomaalida lagu xuseeyay waxyaalaha xarunta aan kala soo shaqeeyay waxa kamid ah oo ay qaban jiray sidaynu ogsoonahay magaalada waxa ka jiray conflict u dhaxeeya bulshada xarunta Jaamac Umar Ciise waxay ka shaqeyn jirtay dhalinyarada labada gadi inaan isu keeno magaalada Gaalkacyo oo ay xaruntu u noqoto tiyaatar ama meel ay ku kulmaan oo hiboolayaasha iyo kuwa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fanka hibada u siiyay ay ku soo bandhigaan talentigooda xarunta Jaamac Umar Ciise waxay mar walba dhiirigelisaa oo soo dhaweysaa qof kasta oo dhalinyaro ah iyo qof kasta oo da'weynba oo hibalihi inuu hibadiisa soo bandhigo la kaydiyo taariikhda Soomaalida sidana adduunku waa dhacda iyo dhigaal dhacdadana waxa laga bartaa wixii tagay dhigaalkuna waa taagan xarunta Jaamac Umar Ciise waxaan ahaa ardaydii la kowsaday bartamihii 2013 waagaas marka waxay ahayd meel yar oo loogu talagalay in akhriska iyo maxaa la yiraahdaa ardaydu in ay ku sameystaan cilmi baaristooda iyo waxyaabahaas oo kale waagaas waxaa la oran jiray xarunta akhriska iyo cilmi baarista Islii laakiin wadanba waxaa timid baahi la istusay in ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Kenya wax ku barta ay u baahan yihiin in afkii iyo maxaa la yiraahdaa dhaqankii iyo wixii iyo in maaragtay laga dhiso oo waxa weey laga hagaajiyo maadaama ay luqad qalaad ay wax ku baranayeen markaasi kadib adigu taladii waxay noqotay in meeshii la balaariyo lagu soo kordhiyo barashada luqadda iyo dhaqanka iyo waliba qoraalka kadib waxaa loo bixiyay magaca Jaamac Umar Ciise maadaama uu ahaa nin qoraa ah suugaanyahanna ah taariikhyahana ah xaruntana ee intaasi ay kowsatay waxay taladu noqotay in loo bixiyo Jaamac Umar Ciise waagii la bilaabay aniga arday yar baan ahaa ardaydii ugu horeysay oo meeshaasi wax akhris u soo aada waan ka mid ahaa kabacdi waxaan ka mid noqday dadka aadka ugu xiran Jaamac dadkii ka shaqeeyay iyo waliba dadkii qoraayaasha ahaa ee ka soo baxay Jaamac Umar Ciise marka saddexdiiba aniga way isku kulansatay oo ahaa akhriska qoraalka iyo afka iyo waliba dhaqanka 2013 ilaa iyo iminka oo aan ka tirsanahay xarunta Jaamac runtii wax badanna waan waxa weeye waan ka faa'iiday waxaana ku noqday nin qoraa ah oo hadda buuggii afraad wada rabo inuu soo saaro insha Allah sanadkan ama sanadkan hadda lagu jiro aakhirkiisa haduu Ilaahay karaal noqdo
hadeertan 10 sano u buuxsantay oo jaamac oo waxaa la aasaasay waan xasuustaa bilahan oo kale bay ahayd weliba bishii lixaad aakhirkeeda inay tahay baan u malaynayaa baan la aasaasay waxay qayb ka ahayd in ardayda markii iskuullada loo xiro tababaro loo sameeyo afka la baro dhaqanka la baro qoraalka afka la baro intaas oo dhan oo ilaa hadeertan ay ku guda jirto oo jaamac Cumar Ciise waxaan leeyahay 10 sano guuradii ka soo wareegatay aasaasidda oo jaamac Cumar Ciise hambalyo waxaan ku soo gabagabeynayaa in hawlahaas iyo hawlo ka sii badanba ay soo socdaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo waa mahadsantihiin waxaan xarunta oo jaamac ka faa'iidaystay photography wax badan ayaan ka faa'iiday waxaan uga mahadcelinayaa macallimiintii oo soo bartay faa'iido badan ayaan ka helay sidoo kale waxaan sanad guuro waxaan leeyahay xarunta oo jaamac oo wax aqris badan aan ka aqristay waxayna sidoo kale ka qayb qaadatay kobcinta maskaxdayda buugaag badan ayaan ka aqristay waana uga mahadcelinayaa aasaasiyaashii xarunta oo jaamac waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan ka mid ahay ardayda oo jaamac wax ka baratay waxaan ka bartay harqaanka iyo cilaanka xirfado kale badan waa laga baranay laakiin intaas aan jaan soo helaan ka barto waxaan ii soo sheegtay gabar aan saaxiibanahay oo iyada meesha wax ka baranaysa marka waa ugu mahadcelinaa oo jaamac xirfadaha ayna bareen insha Allah wali shaqo kuma bilaaban laakiin waan rajaynayaa inaan shaqo ku bilaabo mar dhow. Kwa majina naitwa Madha Mudhoni Wachira. Nilikuwa nimekuja hapa kazi ya German kufunza watoto nikiwa mwalimu. Nikafunza dev kushona carpet rugs. Na niliona wakifanya vizuri sana. Sasa wale wanafunzi nilikuwa nao kwa darasa yangu nilikuwa nawafunza kitu kama hii. Hii inaitwa warp. Kuna pale tulikuwa tunaifunga ndio pandi na pandi nyingine kwa bao. Alafu ndio tunaweka miti. Sasa tunaanza kushona na hii tunachukua hii ni manyoya ya kondoo. Tunafua, tunadai ile kala kama hii kala tumedai kwa na wanafunzi. Alafu tunashona. Na wanafunzi tulifanya nao kwa miezi 3 na wamefanya kitu kama hii na ilikuwa mzuri sana kwao. Anigu magacaygu bilaabayo Cabdirasaaq Sandheere oo kamid ah macallimiinta wax ka bara xarunta oo jaamac Cumar qaybteeda harqaanka waxaan dhigi karaa xarunta waagan ku soo biiray ilaa up to now waxaan barnay ilaa 100 oo farsamada gacanta ah kamid tahay qaybta aniga macallinkan ka ahay harqaanka intii arday aan wax barnay waxaa jirtay arday badan oo ilaa hadda macnaha ku shaqeystaan farsamada aan barnay ayadoo macnaha janiska ugu faa'iideysteen oo jaamac waxaan dhihi karaa shaqo fiican oo ay qabteen inay tahay waxaan ku booranayaa macallimiinta aniga camal ah in si fiican macnaha ardaydooda wax bareen waxay ogaan karaan markii natiijadii wax bartay macallinka markaa tahay ardayga wax bartid faa'iidooyinkii oo ardaygaas oo ku keenay maxaa kamid ah waxaa kamid ah for example aniga hadda ardaydan baray farsamada gacan ku shaqeyska oo harqaanka suuqyadan oo isli qaybaha ku shaqeysto qayb hadda waxaa jiraan oo gaarisa jiraan hadda wajeer ama hadda qaxootiyada camal farsamada aan bartay hadda macnaha ay ku shaqeystaan oo hadda dukaamo ay ku sameysteen arday kale waxaa jiraan hadda Nasra Garden camal Don Home meelo badan oo macnaha kaya kamid ah oo ilaa abtana soo xariiriyo marka faa'iidooyin waan dhihi karaa oo aan gaaray maadaama oo macallinka ardaygiisa wax baray barashada naftirkeeda oo haddana macnaha oo ku shaqeysanayo noloshiisa ku maareynayo waalidiintiisa ku maareynayo waxaan dhihi karaa guul aan isoo heyto waa Ilaahay mahadiisa inuu ku sugnaatay waxayna u sugnaatay oo jaamac Cumar oo macnaha kaalin weyn ka lahaa marka waxaan dhihi lahaa arday walba macnaha oo higsi leh mis hadaf leh ee ugu talgashay inay wax barato wixii baratana ay ka mari dhaliso waxyaabaha kamid ah ardayda hadda macnaha u barteen hadda sida fashionadii wixii kale nooc ay hadda ku isli jooga camal wixii cusub xataa way soo wacaan hadda sidee way dhahan marka aadaan u faraxsanahay inaan ka mid noqday oo jaamac maalinka ku soo biiray iyo maanta isku mid mihi naftirkiga marka waa mahadsantiin jina ni Kevin I'm a trainer weaving niko hapa au jamaa nikitrain my youth kuna train youth deaf youth mostly
ile kitu wanaona ndio inakuwa into practice. So ilikuwa encouraging cause before sikuwa nimedeal na any youth like akona disability ya nini, but they were in action wise walikuwa wanashika everything. Assalamu alaikum. Waxaana magacayga Fartuun Maxamed Xasan. Waxaana ahay habdhaqanka oo tababaraha cilaanka haweenka. Hello everyone. My name is Nancy Njoki. My sign name is that one. I am deaf. Here I teach how to make jewelry using beads, bracelets, necklaces, yes, different designs. So my experience teaching the deaf is easy and communication is very good because the deaf use visual communication, so it's clear and easy to communicate. Yeah. So the community Ajama Omar Culture Center is very good. So the time that I joined, the community had a lot of Somali people who were hearing, but as I continued coming, the deaf started showing up and communicating with us and learning the skills, different skills like crocheting, knitting, making mats, making bracelets, tailoring, yeah. And it's so amazing to help the Ajama Omar Culture Center community, yeah, to learn different skills so that they can become independent. So my experience here is very good, yes. I love the community and I love coming back to train again and again and again. So we've made different things for the jewelry and beading. So for example, we have a necklace here. So this necklace was made by one of the students that I trained here. Yes, I trained and they've made something very beautiful. Yeah, that's amazing. Yeah, so we have different designs. So the community, people learn different things and then you pick whatever interests you and make. So this is another necklace, but with a different design. So this one is almost the same design as the first one, but with different colors. So a student decided to make this one with different colors. Yeah, it's very nice and beautiful. So this is a key holder, yeah, made by one of us here, one of the students that I trained. It's a beautiful key holder. They learned and made something very beautiful and unique. So it's been 10 years and it's so amazing. I want to wish the community a very happy 10-year anniversary. So as we continue in the future, we'll continue improving and have better skills. Yes, so congratulations. I'm so happy to be a part of this and I really enjoy. I'm so happy and congratulations. Happy anniversary together. Hello everyone. Hello again. My name is Rosemary. Adhiambo Okello. My sign name is that one. I am deaf. At this center, I train how to crochet, different styles, how to make mats. That's what I teach at this center. I teach different things. For example, what is behind me. That's one of the examples. Yeah, that's a scarf. Yeah, for example, when it's in a cold weather, yeah, you can use that to cover yourself. That's a bag. This is from one of my students. Yes, I teach how to make the bags and they learn, and that's one of the things that they made. This is another product. That's also a scarf. I taught a student here and they were able to make that. For example, we made the Ajama Omar Cultural Center mat. Yes, so I come
teach, they learn, and they make their own products using the knowledge that I have transferred to them. Yes. They are both from the deaf and from the hearing students that I have trained. I'm very happy. It's been a long time planning, but I wish Aujama Omar Center, Cultural Center, 10-year happy anniversary. I'm also here to support and congratulations. My name is John Mukeni Namai. I'm a professional storyteller and a mentor. Been working with Aujama Omar for over, I think, now 6 to 7 years, and working with the awesome Aujama storytellers, whereby we've been running a training. It's a 3-month training whereby we work with the youths in the art form of storytelling, and they showcase during the annual Somali Heritage Week. Assalamu alaikum. Magacay waa Cabdiqaadir Cabdilbaari. Waxaan maanta ka soo qayb galay sanad guurida 10aad xarunta Aujama. Waxaan ahay qoraaga buuggan Poison and Plate. Runtii wax badan aan la soo koobi karin. Markaan buuggan aan qoriyay iyo hawshii qoritaanka intaan ku jirayba waxaan ka mid ahaa dhalinyarta ku xirnaa ama wax ka akhrisan jiray xaruntan oo wax badan iga caawiyay runtii inaan daabaco qoro soo bandhigo intaba. inta badan qofku markuu wax qorayo wuxuu u baahan yahay macluumaad dheeri ah inuu helo. way adag tahay waqtiga la joogo maadaama aynu nahay bulsho inta badan hadalka wax ku gudbisa ama oral society. waxaa adkaanaysa qofka inuu helo macluumaad sax ah oo buuggiisa ama baaritaankiisa ku saleeyo. saali ajligeed meelaha ugu weyn oo runtii aad ugu mahadcelinayo waxaa ka mid ah xaruntan Aujama oo runtii wax badan oo daraasaad ah ee cilmi baaris dheeri aan ka sameeyay buugta meesha aan ka helay. waxaan runtii aan ku faraxsanahay maanta inaan qayb ka noqdo barnaamijkan hambaliyeynta sanad guurida 10aad xaruntan. runtii waxaan kaloo ku bogaadinayaa inay dadaal ku sii daraan inta ay hadda wadaan in ka badanba iyo waxay bulshadu u ahayaan. aad u mahadsantihiin. My name is Amir Abdurrahman. I'm an author, I'm a writer. I published this book, which is a poetry collection book. And for the past few years, I've been a member of Aujama Cultural Center. And I can say that it has really benefited me in my process of writing this book. I remember coming to this place as a research center where I used to read a lot of books, especially on Somali poetry. And Aujama has given me this platform. I actually launched this book here. Aujama helped me with all the necessary activities that I really needed in completing the process of this book. magacaygu waa Sadiq Maxamed Cali. waxaan ku magac dheerahay Sadiq Xaydar. waxaa ka mid ahay qoraasha Soomaaliyeed oo aan qoray ilaa 3 buug. buugayga ugu dambeeyay waxaa lagu magacaabaa Gabadha Wanaagsan. waxaana wada qornay mid ka mid ah saaxiibada aan aad iskugu dhownahay oo lagu magacaabo Ali Faatix. akhriska iyo qoraalka waa mid ka mid ah waxyaalaha xoojiyo luqadeena Soomaaliyeed. xarunta Aujamana waxay hormuud iyo horseed u tahay dhaqanka akhriska iyo qoraalka. sidoo kale waxay soo dhaweysataa dadka wax akhriska jecel, sidoo kale waxna qoro. anigana aan ka mid ahay halkan aan sidoo kale ka faa'iiday wax badan oo aan soo koobi karin. sidoo kale ku kulmay kuna yeeshay saaxiibo aad u qiimo badan. waa sanad guuradii 10aad ee xarunta Aujama. waxaan leeyahay xarunta Aujama iyo waaxaheeda kala duwan guul iyo gobonimo. magacaygu waa Cabdulla Abubakar Axmed. waxaan Nairobi imid 2020kii. hadafkaygu ugu ballaarnaa wuxuu ahaa waxbarasho inaan imaado. kadib markii aan Nairobi joogay muddo 15 beri ah waxaan si dhaqsi ah ugu soo biiray xarunta Aujama oo aan ilaa hadda aan joogo 2 sano iyo something ayaan saaxiib lahaa xarunta Aujama. actually waxyaabo badan iga saaciday xarunta oo ay koob ka tahay koriimo shakhsiyeed inaan jaanis u helo wax badan in akhriyo, wax badan in iska bedelo. sidoo kale waxa iga saaciday xirfado badan in aan ka barto. 2022 August ilaa September waxaa jirta classes ee xaruntu ugu tala gashay dhalinyarada inay ka bartaan taasoo aan ku bartay data analysis oo waqtiyo qaar aan ku shaqeeyay. xaruntu waxay la tahay saaxiib i dhow ka Cabdulla ahaanna dabcan 10 sano aasaasan tahay laakiin nasiib uma yeelan 10 sano inaan saaxiib la noqdo. 3 sano ugu dambeysay aan saaxiib la noqday. wax badan aan ka faa'iiday. waqtiga rabaan wax ku akhrisadaa.
Yeah, it helped me a lot. wax badan iga saaciday dhammaan dadka asaasay oo xarunta nagu talagalay community-ga waxaan dhammaan ducaan u direynaa si qaas aniga oo hal iyo laba aan sheegi karin way maasan yihiin qof walba oo ka shaqeeyay annaga dhalinyaro ka ahaan arday ka ahaan in bilaa xujo aan wax u barano. Thank you so much. magacaygu waa Faarax Maxamed Xiirane Faarax Lamaane waxaan ku suganahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay inaan hambaliyo halkan aan u mariyo hawada xarunta Ojama Culture and Research oo 10 sano jirsatay dabcan anigoo ka mid ahay akhristayaasha sanadii ugu dambeeyay runtii waxay ahayd meel ka mid ah qaybta ugu weyn nolosheeda ka qaadatay haddaysan ahayn nolosheeda oo dhan ama gurigayga labaad ay ku tilmaami karaan. waxaan rabaa halkan hambali u diro maamulka dhammaan iyo asxaabta oo aniguna aan ka mid ahay member of the Ojama aan ka mid ahay hambaliyada 10 sano jirsatay xarunta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Samira Saleh. I have been a member and part of Ojama Cultural Center. Joined Ojama in 2019. At first I learned photography, which was like skill, and we get to learn photography and the editing part and everything. And later on I also started theater classes, which they were offering for completely free. And it was so useful, and I sometimes started making money from my photography skills. And yeah, I'm still with Ojama, still learning new things every now and then, and I'm just so grateful to Ojama and all the opportunities it's making possible for all the people in the Slee area, Somalis and non-Somalis, and how they're making skills more accessible than it was before. So I'm grateful. Okay, yes, my name is Ken Bashir, and I think because the Somalis could not pronounce the name Bashir, they said Bashir, so that has picked up as my nickname. Yes, I've been a friend of Ojama for actually quite a long time because I came to know them when we started teaching. I was introduced by some friends who were teaching English here. Hi, my name is Muriuki, James Muriuki. I came to know about Ojama Culture Center a few years ago through a friend that I was working with in different capacities, and he mentioned about this cultural center here, Ojama, and what they're doing and what they've been up to. And from that, he told me of potential engagement with Ojama. And at that time, we had just developed a structure, sort of a learning structure that we wanted to work with. And so it was just perfect timing that Ojama came to my attention around that time, and we ended up doing very interesting things here. We had designed a small sort of curriculum, if I may call it that, for learning photography, from sort of the basics of the equipment or the technical basics to also social issues. How do you approach spaces? How do you approach people? How do you construct stories? How do you build stories that interest you? So a whole array of things that we wanted to engage. We had lessons where we looked at the workings of camera equipment, and by camera equipment, of course, we're not limiting to the idea of cameras to sort of what one identifies as a proper camera, because we do know that there's many other gadgets now that have got a camera. We've got phones, we've got iPads and all sorts of gadgets that have cameras. So we needed to understand sort of what are the basics of camera work, of the equipment, because if you're going to be using certain equipment, then you need to understand what the equipment can do for you, what are the limitations, and what are the possible places to adventure into. So we looked at the equipment, and then after that, then we started looking at the stories that people were coming with. They went out and did photos, and we'd come and we'd review the photos, talk about them, what works, what does not work, what were the complications of getting those images. Because again, anyone can press the shutter of the camera, but getting to that point of pressing the shutter of the camera, how do you get there? How do you develop that story to a point where you say this is a good moment to press this? And that is about people. It's about talking to people, communicating, telling them who you are, telling them what story you're interested in. Sometimes you're rejected, you have to deal with yourself. How do you deal with rejection? So a whole lot of things that we had to cover to make that exercise sort of work and sort of have certain milestones that we had set for ourselves to achieve towards the end of the workshop. And then towards the end, we had
what we'd call like a mini exhibition. So some of the works that we found were very powerful and strong and brought out the stories that the participants wanted to bring out. We created sort of a small exhibition that showed some of that work, and a publication followed that was part of the Somali Cultural Week. My name is Ikran Ahmed Mohammed and I am a student. I came to know about Ojama through my mother. She used to do courses like knitting, the free courses that were given out. And after I came, I joined the free videography classes, which I was taught a lot in it, and I did a lot of projects and short videos, and I've also done a major project in the refugee camp, which talked about girls, the importance of educating a girl and the process of educating a girl in the refugee camp and the troubles they go through and everything. waxaan maxamed cismaan waxaan kamid ahaan jiray hadda waan ka qalin jibay laakiin waxaan kamid ahaan jiray ardayda oo jaamac Umar waxaan bartay waxyaabo aad u fara badan oo halkan ku soo koobi karin waxa kamid ah kaarbadiyada waxa kamid ah maxay tahay dumaha sa loo sameeyo sida cilaanka waxaan bartay muxuu ahaa waxyaabo ay kamid ka yihiin tima dabista ma soo koobi karo waxyaabo aad u fara badan oo aan halkan ku soo koobi karin baa jirta laakiin waxaan aad iyo aad xoog u saaray inaan bartay baagaga waxyaalaha kuulaha laga sameeyo tishashka lagu rito ubaxyada furayaasha ma soo koobi karay waxbarashada halkan ka aad uga bartay alxamdulillah ma sha Allah xoogana waxaan saaray oo aad ugu manaafacadsada waa tan oo aan lacag fara badan ka sameeyay oo aan marna ilaawi karin oo ku soo laabtay iskuulkii aan wax ka bartay alxamdulillah ma sha Allah waxaan gacan qabatay oo aad noogu dhiirigelisay inaan wax barano Firdawsa oo jaamac ما شاء الله أدبان ومهد علينا يا معلمين تكلنا نقص صار الكراسي دي هراء إلا 17 إلا هذا كما أنقوب قادنا واي وحبك كسي كردستنا وحبك كسي فايدنا مرنا ما أنا كتجن ماشي أحكو برناي وحنشعلان لها أرضي دي نقدم بيسينا إني ساسو كل سكول كود وقص ولابتان هو هذا عصيب يسقريانا إني لاي محيطة يعني وحبرش في يعني إن شاء الله ويكلا كل مدونان فردوسة واحد شفت هذا الآن مالك وريات يدنا ماركتي أقي رجلي ولي بحوق النصارتي وحنا هدانا عقنا الصين لهاي لعقت حول كمان فائدين ما لكن وحبرشية النصيصي أيام ما أنت كل فائدين ما شاء الله الحمد لله آد بيضا وما هتصنتهاي kanukura kudia watu vitu and kuwapiga mapicha na imenisaidia sana huko nje like nimegain experience mingi kukuja hapa hivi Ujama, getting to know a lot of people, making friends, and it was also fun, you know, tukienda mahali tunaenda kupiga mapicha ama kama ni video ama documentary. And I was so happy kukuja hapa hivi Ujama, and then after tumemaliza hiyo workshop tumepata certificate zetu tukaenda huko nje tumepiga ma job alhamdulillah, and na still tundo hiyo ndo bado inatulipa, and sometimes tukipata job opportunities ya kupiga mse picha ama videography and vitu kama hizo. bismillah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Roble. imaanshahaygi ka hor xaruntan Ujama waxaan waqti badan ku lumi jiray fadhi ku dirareeda. ogaanshahaygi ka bacdi xaruntan Ujama waxay ii sahlanaatay inaan waqti badan ku qaato wax akhriska gudaha xarunta Ujama. waxaan u mahadcelinayaa howlwadeennada xaruntan Ujama. waxaan sidoo kale hambalyeenayaa sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay xaruntan Ujama. mahadsanidin. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaanu 10 jirsanay oo ay tahay 10 guuradii sanadka xarunta markii aan aasaasnay 2013 marka waxay noo tahay maalin aad iyo aad u weyn oo aan runtii aan u dabaaldegayno. waxaan aad ugu faraxsanahay xarunta inaan ku bilownay in wax lagu akhristo oo dhalinyaro badan ay isugu timid oo isku baratay oo dhalinyaro ay wax akhriska ku jeclaatay ayna marka ay dhacdo qof inuu buug gadanayo oo buug uu keensado dhalinyaro badan oo buugtii gadanaysa oo akhristayaal ah. waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan noqonay meeshii dadku isugu imaanayay dhalinyaradu isku baranaysay oo dhalinyaradu ma aragtay isku aqoon isweydaarsi ku sameynaysay oo ay kala faa'iideysanayeen.
dhalinyaradii aw jaamac wax ku akhrisanaysay waxay noqdeen dhalinyaro qaarkood af Soomaaliga akhriskiisa barta qoristiisa barta ku hadalkiisa barta markaa kadibna qaarkood hadda ay buugaag qoraan aad iyo aad ayaan waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xuska sanad guurada tobnaad aw jaamac Cumar Ciise waxyaalo badan ayaa ku saabsan arrintan oo ah dadaalkii loo galay in horta la asaaso oo diyaar kugu roon yahay dhaqanka Soomaalida iyo hidaha Soomaalida iyo meel lagu kaydiyo ama laga helo ama dhalinyaradu ay ka hesho iyagoo qurbaha jooga oo Kenya Nairobi jooga kasoo Nairobi Soomaalida u aqoon hadda qurbe oo ay ku badatay marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye dhaqankii jiray oo Soomaalidu lahayd in ay dhalinyaradu haddii alla ku roon ku baraarugaan oo wax ka bartaan marka halkaan oo kale aad iyo aad baa loogu baahnaa markii la asaasay iyo maantaba iyo beriba waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo intaanan u gelin ahmiyadda meeshaan ay leedahay magaca oo laga yaabo dhalinyaro badan oo maanta soo kacday oo 2013 aan jirin amaba caruur ahaa yar yar aysan aqoon oo jaamac Cumar Ciise maxaa loogu bixiyay meeshaan inay isweydiiyaan waa gar inay isweydiiyaan oo jaamac Cumar Ciise Allah u naxariistay sanadkii la asaasay halkan xaruntan ayuu dhintay wuxuu ahaa qoraa wuxuu ahaa dal ku yahay dhaqanyahan wuxuu ahaa taariikhyahan taariikhda Soomaalida aad iyo aad ugu xeel dheer oo wax ka qoray oo suugaanta Soomaalida aad iyo aad waxaana ugu caansan buugta uu qoray oo dhowr iyo 10 ah hadii 20 bagaalin waxa ugu caansan diiwaanka gabayadiisa Maxamed Cabdulla Xasan marka oo jaamac in lagu sharafo halkan ayay noqotay oo dadkii asaasayaasha ah marka ay ku heshiiyeen si loogu daydo si buugtiisa iyo haddii alla ku leeyahay wixii uu ka tegay loo xafido oo dadka loo baro waxay xaruntu noqotay meel dhaqankii kaydisa oo dadku isugu yimaadaan oo dhaqanka ka hadlaan waxay noqotay in aanu sameeyno waxa la yiraahdo toddobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga 2015 markaanu bilaaweynay toddobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga aad iyo aad ayaa dadkii uga heleen waxay noqotay inaanu dadkii ku baraarujino muhiimadda ay leedahay farshaxanka in dadku bartaan gacantooda in wax ku sameeyaan dhiirigelinta farshaxanka iyo agab dhaqameedka ayaan bilownay waxay noqotay inaan dhalinyaro dhagala iyo dhalinyaro kale oo caadi ah aan baro sida kuusha loo sameeyo sida daabaca loo sameeyo sida xinaha loo saaro sida tinta loo dabo sida masawirada loo qaado sida haddana loo sameeyo fiidiyoyaasha waxay noqotay dhalinyaradii wax naga baratay qaarkood ilmo dhagala xataa inay leeyihiin saaluuno iyagu leeyihiin dharka inay tolaan inay haddii ilaahay ku rin ay mar walbaba gacantooda ay ku shaqaystaan waxaa jirta dhalinyaro xarunta aw jaamac ku baratay sawir qaadista filim qaadista iyo qoraalkaba oo hadda si madax banaaniya ugu shaqaysta oo YouTubes leh oo ku shaqaysta xirfadihii aanu baray waxaa jirta dhalinyaro dhagahala oo iyagu hadda leh meel ay dharka ku talaan oo iyagu iscaawiya oo aad iyo aad runtii noo dhiirigelisay waxaa kaloo jira dhalinyaro wixii aanu baray runtii aan uga harin meeshii ee sii wada ee ma aragtay gadaha kuulihii daabaca sida ma aragtay kaarbadiya xataa inta sameeya waxaan aad iyo aad u jeclayn inay agab dhaqameedka sii wadaan oo sii wada waxaan runtii aad iyo aad noo dhiirigelisay farxadna noo ah in 10 sano kadib dadkii annaga nala ahaa dhalinyaradii annaga ka soo baxday xarunta aw jaamac tababaradeeda kala gaarka ah oo xataa kamid ah aqoon isweydaarsiga ay maanta dawladaha ka shaqeeyaan oo meel walba ma aragtay ay shaqaysanayaan oo haddana ay leeyihiin waxaan anu ku soo aflaxay xarunta aw jaamac caqabadahan soo food saaray waxaa kamid ah dhaqaale la'aan xarumaha saan oo kale waxa waaye waa in ama dawladii garab ka taagan tahay ama dadka oo dhaqankoodii afkooda raba inay haystaan ay garab taagan yihiin labadiiba ma aan helin soo waxaan ugu dhacday runtii dhaqaale la'aan aad iyo aad u fara badan
oo aan ma aragtay anagu aad iyo aad isugu tashanay oo mar walbaba aanu nafteeda ku dhiirigelinaynay meeshaan dad baa ka soo aflaxaya sii wada hadda waxaan rajaynaynaa in dadkaygu ay fahmaan waxa aan qabanayno muhiimadooda oo ayna garab istaagaan waxaa kaloo aad iyo aad muhiimadda in la sheego inaanu 7 maalmoodba furannahay oo intaas 7 maalmoodba wax lagu akhrisanayo subaxii waag markuu bari ilaa iyo maqribkii ayna dhalinyaradu mar walbaba kuwa jaamacadaha dhigta kuwa dugsiga sare dhigta inay ka faa'iideystaan waxaan kaloo aad iyo aad u caawinaa markastoo iskuulka la xiro ayaan dhalinyarada oo iskuulada dhigata waliba dhalinyarada dhigata fasalada hoose ayaan u keenaa oo dhalinyarada af Soomaaliga u dhignaa oo art and craft u sameynaa karate baraa aanuna mashquulina oo ay ma aragtay ay afkooda iyo dhaqankoodana u bartaan waxaan marka ka sugaynaa bulshadeena inay fahmaan muhiimadda aanu leenahay oo ayna caawiyaan waxaan kaloo waxaan aad iyo aad u jeclahay meeshaan inaan maanta ugu mahad celiyo dadkii intaas nala soo shaqeynayay oo ay u taagnaa xarunta oo aanan meeshaan aan kuba koobi karin oo waxay qabteen aan cidina ilaahay uu ka ajarsiinayo oo mar walba u taagan bulshadooda inay garab istaagaan oo ay caawiyaan oo ay tusaan waxa wanaagsan waxaan rabnaa ilaahay hadduu idmo 10 sano oo soo socota inaanu noqono inaan gaaro meel fog oo dadka yimaada bulshadoo dhan dadka yaryar iyo dadka waaweynba ay ka heli karaan hadday noqoto meel wax lagu akhristo hadday noqoto meel lagu ciyaaro hadday noqoto meel lagu barto gacanta waxyaalaha gacanta oo aad iyo aad u dhiirigelino iyo haddii ay noqoto in meel ay dhalinyaradu kaba samayn ka dhaba dhaqaale joogto ah marka waxaan rabnaa inaanu haddii ilaahay idmo aanu korro oo aanu wax badan oo bulshada wax u qabanaya oo taabanaya maalin walba inaanu samayno intaas oo dhan oo soo sheegnay iyo waxaas aanu ma aragtay haaminayno iyo hawadaas badan oo aanu samaynayno waxaan ku gaari karaa taageeridiina bulshada oo fahanta waxa aan qabanayno oo na garab istaagta oo aanu ka helo dhaqaale joogto ah mahadsantiin